محمد كاهن يا موسى بيحي يا نوح تاني يا علي برة يا رجع يكمل كيه عدالة مامور كيس السي خاتمه يا محكمة هدو أي رادينيسة maamulka SSC qaatumo ayaa xilligan ku dhawaaqay sirdoonkoodana ugu baaqay in ay soo qabtaan magaalada Hargeysa ka raadiyaan Nuux Taani Muuse Biixi Cali Barre ina Kaahin iyo rag la mid ah oo uu ka mid yahay Mahad Cambaashe iyada oo SSC qaatumo ay ku amartay sirdoonka SSC qaatumo in ay nolol iyo geeri midkoodba ay ku keenaan raggaasi magacyadooda ay taxeen iyaga oo sheegay inay toogasho ku filin doonaan sirdoonka SSC qaatumana ugu baaqay in ay markaasi si degdeg ah ay u soo qabtaan SSC qaatumo ayaa markii ugu horeysay daaha ka qaaday in raggan maxkamad la saari doono lana toogan doono iyada oo markaasi SSC qaatumo ay ka xanaaqday hadal la yaab leh oo ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland Maxamed Kaahin hadaba halkan ayaan kula wadaagi doonaa محمد كاهن يا موسى بيحي يا نوح تاني يا علي برة يا رجع يكمل كيه عدالة مامور كيس السي خاتمه يا محكمة هدو أي رادينيسة gacan ku dhiigle uma qareeni karo mujrimiinta aanu gacanta ku hayno ee lagu qabtay dambiga iyagoo gacanta kula jira iyaga ka dambi weyn maxkamadaha iyo cadaaladda SSC khaatumana iyagay raadinaysaa dambiile uma qareeni karo wararka been abuurka ah ee ay saxaafadda mariyeen ee ay bulshadooda ku marin habaabinayaan ay doonayaan inay waaqaca gudahooda ka jira iyo dhibaatooyinka gudahooda ka jira iyo dhaqaale burburka iyo amni xumada iyo horumar la'aanta ay ku hayaan deegaanadooda inay ku damiyaan warar been abuura oo aan waxba ka jirin bulshada reer SSC khaatumana waxa loo cadeynaya maamulka SSC khaatumo inaanu gacan ku dhiiglayaal wax negotiation iyo dhexdhexaad kula jirin wada hadal inaan geli karin inaan mid hoose iyo